dowladda Kenya ayaa lagu wadaa in qaadka loo soo dhoofinayo Soomaaliya ay bilowdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan sida ay qoraya warbaahinta dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Kenya iyo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cali Nuur ayaa isku raacay in si degdeg ah ay dib u bilaabmaan heshiiska adeegga hawada ee labada dhinac. ganacsatada iyo beeraleyda Kenya ayaa si u soo dhaweeyay dib u furista suuqa Soomaaliya balse waxay ugu baaqeen dowladda inay dedejiso bixinta shatiyada dhoofinta. Kenya iyo Soomaaliya ayaa jimcihii dib u soo nooleeyay xiriirkii labada dal kadib markii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isku afgartay in ganacsiga iyo duulimaadada labada dal uu si degdeg ah dib u bilaabo. gudoomiyaha ururka ganacsiga Maya Bena ee Mira ayaa sheegay in hay'adda beeraha iyo cunnada ee Kenya ay diiwaan gelinayso 500 oo dhoofiye ah kuwaas oo doonaya inay jaad ku soo dhoofiyaan Soomaaliya. waxaan haynaa in ka badan 500 oo dhoofiye ah oo soo codsay shatiyada dhoofinta laakiin afa ayaa weli ku howlan si degdeg ah ayaan ugu baahanahay sababtoo ah ma mari karno jaadka annagoo aan hoggaansamin shuruucda ayuu yiri Masar Bunjuri. sida xeerku dhigayo dhoofiyaashu waa inay diiwaan gashadaan oo ay shati ka haystaan hay'adda afa dhoofinta ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay helaan ogolaanshaha dhoofinta shixnad kasta. ganacsatada Soomaaliyeed ama hooyooyinka ganacsada magaalada Muqdisho ayaa dhankooda aad u soo dhaweeyay heshiiska dhawaan gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ah in qaadkii mirowga ee hore dowladii Farmaajo u joojisay loo soo dhoofin doono Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. dad oo shurtiga oo macnaha oo ku ganacsada oo u jaran tahay boonada ganacsiga Farmaajo in adeerkiisa oo dad siyaasiyiin qaadkan waa la siyaasaday haddaan ka caawino cabashadayna la qaadi maayo haddaan dhib ka sheegno la qaadi maayo. hadda maalmaha ugu dambaysa xagayga daay waxaan loo keenayaa si biyo ku daay oo biyoole ah oo waxaan ku dhahay hadduu qurmaayo lagu dhahayo qurunkaada ku qaada beesadana iska keen ma laga keenayo manasigiina aan laga helayn marka dhib badan aan ku qabnaa wallahi bilaa aad u dhibaataysannahay. waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol qaadka Kenya la fasaxaayo waayo qaadka Kenya marka aan gadi jirnay waxaan ahayn dad xur ah laakiin hadda waxaan dareemaynaa dad cabursan inaan nahay oon xor ahayn. maxay ahayd qaadka Kenya marka aan gadi jirnay wax nolkuma yeelan jirin deyn maantana Ilaahay wuxuu qadaray in annaga waxaan shaqaysano nalka qaata 24 saac. qaadkana waxa xumeeya qaadka Itoobiya lacag badan kama oo gadno kiilada $2 ku socotaa. qaadka waxa maamulkiisa nimanka haysto ayaa u heshiiyay gabdhaha qaadka gado ma fahanti maxay wax dhaqaalaana kuma qabno. hadda maalinta qaadka Kenya la joojina $1 leeyahay ma leen maantana lacag fara badan leeyahay leeyahay. dowladda Kenya ayaa amartay in qof kasta oo Soomaaliya u soo dhoofiya qaadka mirowga shati la'aan inuu mutoosan doono xarig ilaa 3 sano ah ama ganaax lacageed oo dhan 5 milyan oo shilinka Kenya ah.